سكوي الصوت قرن واي مركز أخريانا الدوينا نديسيانا سومالي الشيخان ولا يشكون أكباي بيوت مجالنا قربة شركة جراد لغو تشنا مسير كأمة كوفر كالبيت gaar ahaan Europe oo ka dhacay farshaxan magaalada Dham Sweden 16 August 2014 qodobka ugu horeeyay shirkan waxa uu aqoonsaday in golaha guurtada ee koonfur galbeed inuu yahay golaha ugu sameeya ee ay leeyihiin shacabka koonfur galbeed iyo kan dowlad goboleedka Soomaaliya Southwest 6 inuu ku yimid rabitaanka shacabka koonfur galbeed golaha guurtada waa golaha ugu sameeya go'aan ka gaara masiirka iyo danaha shacabka koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobka labaad in maamul goboleedka lixda gobol koonfur galbeed uu yahay maamul ku yimid rabitaanka shacabka isla markaana ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ogolaatay bilowgii dhismaha maamulka tixraaca wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha oo nuqulkeedu yahay WA/X W00016/2012 taariikhda markay ahayd 15 bishii 2013 dowladda iyada ayaa aqoonsatay qodobka saddexaad waxaa la doortay maamul dowlad ku meel gaar ah muddo hal sano kaas oo la magac baxay dowladda koonfur galbeed ee Yurub taas oo ka shaqeyn doonta danaha iyo masiirka ummadda koonfur galbeed oo xilligan marayo meel aad u xasaasi ah loona baahan yahay in labada la badbaadiyo jiritaanka iyo taariikhda ummadda koonfur galbeed qodobka afaraad maanta oo ay taariikhdu tahay 16 August 2014 waxaa loo aqoonsaday maalintii xasuuqi ka dhacay gobolada koonfur muddadii u dhaxaysay 1991 ilaa 1999 taas oo magaalooyin ka mid ah loo bixiyay magaalooyinkii dhimashada waxaa kaloo la aqoonsaday in la sameeyo guddi baaritaan iyo dabagal shakhsiyaadka geystay falalkaas iyo kuwa ka dhacay Puntland oo dad digli military dhibaato loogu geystay si maxkamad loo keeno qodobka shanaad waxaa kaloo u sheegayna international community-ga UN Security Council-ka UNISOM EU-da AU-da iyo Arab League in ay tixgeliyaan isla markaana ixtiraamaan rabitaanka shacabka koonfur galbeed taas oo loogu gaari karo nidaamka federaalka iyo dimuqraadiyadda si loo gaaro nabad ka dhalata gobolka iyo geeska Afrikada qodobka lixaad qolooyinka ka dambeeya burburinta waxa ay shacabka gacantooda ku sameysteen iyaga ayaa mas'uul ka noqon doona dhibaatadii ka timaada oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ugu jira golaha wasiirada iyo xildhibaanada digli military ee ka shaqeynaya sidii ay u burburin lahaayeen horumarka iyo dowladda ay shacabka koonfur galbeed ay samaysteen intaas waxaa igaga eg shirkii jaraa'id ama qodobadii ka soo baxay maanta shirkan maanta lagu yeesho Sweden farshaxan magaalada Dham maanta oo taariikhda ay tahay 16 bishii August 2014 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.